السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel kasto aad naga dhageysaneysaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni faaqidaada ciyaaraha qodobada aan kugu heynana waxaa kamid ah dhaliyaha kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa waxaa looga digay in uu sababtiisa ka kooxda Liverpool xidiga Sadio Mane. Mohamed Salah ayaa waxaa la arkayay kulankii ugu dambeeyay ee ciyaartay kooxda Liverpool isbuucan in asiga oo boos banaan taagan Sadio Mane Mohamed Salah banooni uu la soo orday uu u baasi karay Sadio Mane uu darbeeyay kad uu birta ku dhuftay. Khabiirka BBC-da Craig Cross ayaa waxa uu u sheegay Mohamed Salah in uusan sababtiisa kaga tagin saaxiibkiisa Sadio Mane. Mohamed Salah iyo Sadio Mane wada shaqeyntooda ayaa la ogyahay in ay kooxda Liverpool ku gaartay guulihii ugu dambeysay ayuu yiri khabiirka BBC-da ee Craig Cross. Kubad madax ahayd ayaa laga badbaadiyay Sadio Mane iyadoo kubadda ku celiskeedana uu gool u bedelay Roberto Firmino kadib baas qurux badan ama cross qurux badan uu soo qaaday Mohamed Salah ayayna waxay uu soo qaaday Sadio Mane ayayna waxay guusha ku raacday kooxda Liverpool 2-1. hase yeeshee khabiirka BBC-da ayaa waxa uu sheegay haddii uu Sadio Mane u baasi lahaa ciyaaryahanka Mohamed Salah haddii uu u baasi lahaa goolka Mohamed Salah Sadio Mane waxa ay Liverpool ku badinayd ayuu yiri 3-1. kooxda Liverpool ayaa waxay gurigeeda kaga badisay kooxda Sheffield United isbuucii la soo dhaafay. isbuucan dhexdiisa kooxda martida ahayd ee Sheffield United ayaa goolka ku hormartay hase waxaa goolka barbaraha dhaliyay Roberto Firmino asoo ka faa'iideystay banooni uu Sadio Mane uu boorta soo celiyay uu ku celiskeeda ka faa'iideystay Roberto Firmino kadib ciyaarta oo 1-1 baas qurux badan ama cross qurux badan uu soo qaaday isla Sadio Mane ayaana waxay ku heshay goolka guusha kooxda Liverpool oo ciyaarta uu Diego Jota kaga dhaliyay goolka labaad ee ka dhigay ciyaarta 2-1. haddaba khabiirka BBC-da oo ka sii hadlayay arrintan ayaa waxa uu sheegay kadib uu sheegay soo dhigista crosska cajiibka oo uu goolka guusha kaga dhaliyay Diego Jota markii uu Mane saaxiibkiisa Mohamed Salah kaga cawday in uu u baasi waayay kubadda. Mohamed Salah ayaa haddana waxa uu ku jawaabay in aan shuudo ayay ahayd wax kale oo furnayd ma aysan jirin. hase yeeshee Sadio Mane ayaa markale ku celiyo yiri ma aysan ahayn in aad baasid banooniga. kadib khabiirka sportiska ayaa waxa uu yiri meeysan kooxdii fanka ee Battles ku burburin arrimahan oo kaleeto fadlan kooxda Sadio Mane uu sababta kaga tagin ayuu soo qoray khabiirka BBC-da ee Craig Cross. haddaba dhageystayaashana sharafta leh waxaan weydiinaynaa ma la joogaa xilligii ay Mohamed Salah iyo Sadio Mane laba koox u kala dheeli lahaayeen? fadlan ra'yigaada ama saadaashaada comment noogu soo reeb. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe gambarka furo oo na dhiirigeli comment hoos noogu soo reeb la wadaag asxaabtaada si ay noogu soo xirmaan tan iyo inta kulmayna barnaamij lamid ah fi amaanillah.